humanitarian ama ku baxday development-ka waxaan rabnaa anaga ama dawladda madaxweyne xasan sheekh iyo ra'iisul wasaare xamse waxaa ka go'an inaan ka guurno humanitarian-ka u guurno development-ka humanitarian-ka markaas lagu majuri karo waa iska temporary xaalad markaas taagano emergency baa lagu xalin karaa dalkaani si meel fog oo u gaaro dawladdaani waxaa ka go'an inaan u guurno territory development oo aan ka shaqeyno wixii long term nolosha dadka iyo horumarka iyo wax oo dhan ka shaqeynayo sidoo kale waxaan rabnaa inaan kor loo qaado isticmaalka country systemka dawladda waxaan rabnaa inaan aamino systemkeena waxaan rabnaa wax kastoo dalka la soo gelinayana country systemka inay soo martaan rabnaa oo aan kor u qaadno annagana waxaan nagala rabnaa inaan accountable noqono inaan transparency noqono inaan annaga nafteena serious ka nahay isbeddelka aan rabno oon ku hadlayno inay annaga naga muuqato annagana mas-uuliyaddiisaan qaadaynaa annagana waxaan rabnaa partnerskeena inay sidoo kaleenta mataqaanaa country systemka ay isticmaalaan haddaba waa jiraan hay-ado isticmaala oo World Bank ka mid yahay mashaariicdooda country systemka isticmaalaan waa lagu qanacsan yahay issue kama jiro transparency waaye hay-adaha kaleento donorska wax naga dhaxayaan partnerskeena waxaan ku dhiirigelinaynaa markasta in oo mataqaanaa aan inay isticmaalaan dhanka kaleento waxaan rabnaa inaan ka guurno implementing agencies-ka tirada badna waxay qabanayaan dawladda inay fulisaan rabnaa inaan annaga arrintaas waa annaga waxaan rabnaa in implementing agencies-ka oo la aaminaadaas dawladda systemkeeda transparency-geeda nidaamkeeda dawladnimo iyo maxaan ku dhahaa institutionska financialskeena waxoo dhan hadda waa up to the standard waaye dawladda inay mashaariicda fulisaan rabnaa in implementingska hay-ad ma dhahayna hal mar ha laga soo wada guuro laakiin waxaan rabnaa inta aan ku jirno sanadkan wixii ka bilaado percentage ka mid ah waxyaabaha ay fulinayaan dawladda inay fulisaan rabnaa oo loo soo guuro 100% maalin horenta waxaan soo laandigaraynay 2021 aid maxaan ku dhahaa followgii dalka soo galay 2.1 billion dollar dalka soo galay oo aid iyo development isugu jiro oo 956 ku dhawaad ah ay ahayd development-ga lacagaha ku baxay lacagtaas xoogooda off budget ku baxay waa soo dhaweynaynaa partnerskeeda waa soo dhaweynaynaa laakiin hadda waxaa la gaaray waqtigii gradually si tartiib aan usoo guuri lahayn oon ugu soo guuri lahayn isticmaalka dawladda nidaamkeeda ama government systemka annagana waxaa nagala rabaa inaan dhab ka noqono serious ka noqono bold enough ka noqono inaan serious ka nahay transparent aan nahay inaan accountable idin nahayna waa annagaana laga rabaa inaan arrintaas muujino aad iyo aadaan idinka mahadcelinaa dhammaan kasoo qaybgalayaal